السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي عشر كيني لباد ويسكول فشدا عشر كيني هربا حنكسو قادناي جدول كحسابتا سيبا كو إلى أفر وأن ميد والبا تصالا كسو قادناي أن لبا تصالا كسو قادناي waxaan soo sheegnay laba qodob oo ahaa in ardayga markuu rabo in uu isku dhufshada barto uu marka hore u yaqaanaba midda koowaad waxaan ku sheegnay in uu si fiican u yaqaano isku daridda iyo kala jaridda inuu si fiican u yaqaano midda labaadna waxaan nidhi in uu yaqaano jadwalka xisaabta taas waa waxay tahay muhiim marka maanta waxaan qaadanaa casharkeeni labaad waxaan soo qaadanay waxaan ka bilaabaynaa 5 ilaa 8 baa ku joojinaa macna jadwalka xisaabta baan rabnaa in insha Allah taala in aan maxaa ka shaqeyno isagoo mid walba aan ka soo qaadan doono lolo tusaale marka qaabka oo shaqeyna hore waan sheegnay qaab isku dhufasho ah isku dar ah baa oo shaqeyna isku darid ah baa oo shaqeyna siba ardayga markuu bilowga yahay waxa ma fahmi karo 5 lagu dhufto ma fahmi karo laakiin markii lagu fahansiyo qaab isku darid ah waxay noqonaysaa marka ayar buu la soo qabsanaya marka dusaan buu garanaya marka hadda casharkiina guda galeena waxaan ugu horeeyaa 5 oo lagu dhuftay 3 5 oo lagu dhuftay 3 baan nidhi see ku xallin karnaa waxaan nidhi mar walba waxaan soo sheegnay tirada weyn baa la calaamaystaa tirada weyn 5 baa calaamaysanaa tiradaas marka calaamaysid baan nidhi tirada weyn marka calaamaysid baan nidhi tirada kale inta ay tahay oo kale baa qoraysaa sanaha 5 baa calaamaysanaa sumahan inta 5 tirada 5 yiraahdo intee jir baa qoraynaa waxa noo sheegaysaa tirada halkan kale aan calaamaysan baa sheegaysaa marka 5 intee jir baa qoraynaa waxaan qoranaa 3 jeer anaga u dhaxaysin calaamada ku darta waxay noqonaysaa 5 oo lagu daray 5 oo lagu sii daray 5 marka maxay la mid noqonaysaa marka waa 3 sanaad sababtoo tiradan 5 baa calaamadsanayda weyn 5tan tiradan inta qoraynaa waxa ka fiirina halka ma ka fiirina marka intee ba noqotay tirada 5ta 3 jeer hal qoro bay u dhiganta waxa weeye 5 oo lagu daray 5 oo lagu daray 5 waa intee weeye 5 ku dar waa 10 5 ku darna waa 15 marka jawaabtu waxay noqonaysaa 5 oo lagu dhufto waxay la mid tahay 15 bay la mid tahay tanaawad waxa weeye 5 oo lagu dhuftay 5 eedan soo ku soo bixinaa waxa ku soo baxaysa baan nidhi labadu way isleeyihiin marka labada mid aad ka dunto calaamadsan kada tanba waa la mid baan nidhi oo casharkeeni koowaad isku dhufashada baan ku sheegnay in labadu mid ka dunto calaamadsan kadib oo hadda 3 calaamadsid baan nidhi aad 3 tirada 3 5 jeer qoraysid ma soo sheegan hadda 5 calaamadsidna 3 jeer baa 5 qoraysaa saas ku sheegan haddana waxa weeye 5 lagu dhuftay weeye ka dunto calaamadsan kada kan oo calaamad hadda ka damba calaamadsanay marka 5tan kale aan calaamadsanay intee jeer baa qoraynaa marka 5tan waxaan qoraynaa 5 jeer sababtoo halkan 5 baa noo taala samahan marka 5 sanaad qor 5 oo lagu daray 5 oo lagu daray 5 oo lagu daray 5 oo lagu daray 5 macnaha inta uu noo noqday baan nidhi wuxuu noqday 5 sanaad baa qorna samahan intee qornay waxaan qornay 5 lagu daray waa intee waa 10 5 lagu darayna waxa weeye 15 5 lagu darayna waa 20 25 lagu darayna waa intee baan nidhi waxaan qornay waxa weeye noqotay 25 bay noqotay marka jawaabtu waxay soo baxaysaa 25 bay soo baxday jawaabtu 5 lagu dhuftay waa 25 qaabka waxaan u shaqeynaa ku darista baan u shaqeynaa halkaas oo jeedaan tusaalaha maxaa saddexaad wuxuu noo noqonayaa 6 oo lagu dhuftay baan nidhi 2 markaas waxaan tirada weyn ba calaamadsanaa tirada laba calaamadsan karna laakiin way badanaysaa muusumahan way badanaysaa dan wax badan ba qorina way badanaysaa marka tirada weyn noo calaamadii 6 baa hadda calaamadsanay 6 oo lagu dhuftay 2 waa intee ayadoo aan anagu u shaqeynaa qaabka ku daridda marka waxaan tirada 6 ah marka calaamadsanay intee jeer ba 6 qorinaa waxaan qornaa 2 jeer soo talkan 2 noo taala marka qor marka waxaan 6 oo lagu daray 2 oo qorana 6 oo 6 lagu daray kooda laba lixaad baan qorayaa sababtoo ah laba itaala 6 iyo 6 baan qora laba lixaad baan qora 6 lagu daray intee weeye 12 saas ku soo baxaysaa 12 baa ku soo baxaysaa halkan waxa taa 6 lagu dhuftay 8 baa taala marka waxaan nidhi markaas tirada weyn baa calaamadsan Soomahan tirada weyn noo calaamada 8 baa weyn 8 baa calaamadsan marka 8 intee jeer baa qoraynaa waan nidhi waxaan qoranaa 6 jeer baa qoraynaa marka 8 beer 6 noo qor waa qornay 8 oo lagu daray 8 oo lagu daray 8 oo lagu daray 8 oo lagu daray 8 intee lixaad baa qornay 5 weeye mid kale nagu dar waxaan qornay oo jeedaan 8 lixaad baan qornay
waa 8 lagu daro waa intee weeye waa 16 lagu daro 24 lagu daro 32 lagu daro waa 40 lagu darna waa 48 su'aan 48 baa noo soo baxay marka jawaabtu waxay noqotay 48 ay noqotay maalin 8 oo 6 oo lagu dhufto 8 waa 48 maxaa u shaqeynay tirada weyn baa calaamadsanay hadhowna tirada marka calaamadsanay tiradan kale inta ay tahay intee weeye 6 weeye marka 8 baan 6 jeer qoray 8 bir 6 aan qoray bas tabtii waa isku dardaray hadhowna tiradii cayaan bay soo baxday 48 ah hadda waxna wixii 7 oo lagu dhufto 7 baa noo xigta marka sameeyna islaayda sameeyna tirada weyn baa calaamadsanaa ya calaamadsanaa 10 ka calaamadsanaa 10 marka calaamadsanno tiradan weyn aan 10 ka calaamadsanay ma niri intee jeer baa qoraynaa waxaan qoraynaa tirada halka noo taalo 7 macna 10 beer 7 aan qor macna maxay la tahay 10 oo lagu diray 10 oo lagu diray 10 oo lagu diray 10 waa 1 2 3 4 meesha subax 5 6 7 macna waxaan niri tiradan 10 la yiraahdo waxaan qoray 7 jeer intee qora 1 2 3 4 5 6 7 jeer baan qora 7 beer 10 ay aan isku darna marka 10 lagu daro waa intee weeye waa 20 10 lagu daro 30 10 lagu daro waa 40 10 lagu darana waa 50 10 lagu darana waa 60 10 lagu darana waa 70 kii waa qornay marka 7 oo lagu dhufto 10 ma intee weeye 70 weeye saas ku soo baxaysa tana waa islaayadii weeye 7 oo lagu dhufto 11 weeye tirada 11 baa calaamadsan sababta ayada weyn marka intee jeer baa qornaa 7 jeer baan qornaa ayadana aan qorno marka 11 oo lagu daray 11 lagu daray 11 oo lagu daray 11 oo lagu daray 11 kow labo 3 4 5 lagu daray 6 7 marka hadda maxaan sameeynaa tirada waxaan leeyahay mataqaanaa 11 waxaan qornay baan leeyahay 7 jeer baan qornay Soomaan kow labo 3 4 5 6 7 jeer baan qornay saa u jeedaama marka waa isku darnaa marka 11 lagu daro waa intee weeye waxa weeye waa 22 11 ku daro 3 44 11 ku daro 44 11 ku daro waa 50 iyo 5 11 ku daro waa 66 waxa ku daro 11 waa 27 marka 7 lagu daro 11 intee weeye 77 soo baxaysaa jawaabtu waxa weeye 77 soo baxaysaa jawaabtu markaan isku darnay ay hadda waxa nagu xigtaa 8 oo lagu dhigto 9 baa nagu xigtaa mar walba waxaan tirada weyn calaamadsanaa 9 baa calaamadsanay markaan 9 calaamadsanay tiradan 9 la yiraahdo intee jeer baa qoraysaa waxa qoraysaa 8 jeer baa qoraysaa 8 jeer baa qoraysaa 9 tirada 8 jeer qor marka waxa weeye 9 oo lagu daray 9 oo lagu daray 9 saddex sagaalood 4 5 6 7 8 marka waxaan sameeynaa tiradan 9 la yiraahdo waxaan qornay 8 jeer baan qornay tirina marka inay sax tahay 1 2 3 4 5 6 7 8 mushda 8 jeer baan qornaa 8 beer 9 baan qornaa hay isku dar marka 9 lagu daro intee weeye 18 9 lagu daray 22 9 lagu daray 36 9 lagu daray 40 9 lagu daray 54 9 lagu daray intee weeye 63 9 lagu daray 72 qorayna marka 8 lagu dhufto 9 waa intee la mid tahay 72 ay la mid tahay 8 lagu dhufto 12 halkan taala waxaan marka hore tirada weyn baa calaamadsanaa marka tirada weyn calaamadsanno tirada weyn inta jeer oo la qorayo waxa noo sheegaysaa niri tirada halkan taala baa noo sheegaysaa tirada macna 8 baa noo sheegaysaa tirada halkan taala noo sheegaysaa hay 12 jeer baa qornaa waxaan qornaa 8 jeer hay 12 bir 8 qor 12 oo lagu daray waa 2 3 4 5 6 7 kow labo 3 4 5 6 7 8 hadda maxaan qornaa waxaan qornay 12 oo 8 jeer ah baan qornaa aan tirino kow labo 3 4 5 6 7 8 waan qornaa hay marka aan isku darno marka wuxuu noqonayaa 12 lagu daro intee weeye waxa weeye 24 12 ku dar waa 36 ku dar 48 ku dar 6 ku dar waa 72 ku dar waa waxa weeye 84 ku dar 86 maxaa jawaab soo baxday weeye 96
sagaashan lix bay soo baxdaa soo maahan sagaashan lix bay noo soo baxdaa marka saas baan ku wadanaa insha allahu tacaala tiradana markaan tirada weyn calaamad suro hadhowna tirada inta kaxaan ku taala inta ay tahay qoro saas baan marka shahaad waxay noo soo baxday sagaashan lix marka insha allahu tacaala casharka habeen dambe cashar saddexaad baan nagu sii xigi doona saasaan kusii wada doonaa insha allahu tacaala